Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya iyo kooxda Al-shabaab ayaa ku wada dagaalamay ismaamulka Mandera kadib markii halkaasi uu ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Kenya iyo sidoo kale Al-shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada ammaanka ee dalkaasi Kenya ay roondo ay ka sameeyeen ismaamulka Mandera halkaasi markaasi isku arkeen xubno ka tirsan Al-shabaab. Ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan ismaamulka Mandera ee dalkaasi Kenya ayaa goobta gaaray iyadoo isla markaana halkaasi ay kaga biireen dagaalka kooxda Al-shabaab oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka ee Kenya iyo iyaguba. Waxaa la sheegay in halka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse inta uu la egyahay lama sheegin. Kenya ayaa heegan buuxa gelisay dhanka kale ciidamada kadib markii ay heshay xog muujinaysa dhaqdhaqaaq ay sameynayaan xubno ka tirsan Al-shabaab kuwaas oo doonayay in ay beegsadaan goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca kale Kenya ee lagu faahfaahinayo khasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-shabaab ku soo qaadeen ciidamadoodii oo roondo ka sameynayay ismaamulka Mandera ee dalkaasi Kenya.